asxaabta ku xiran Daily News warbixin yar ayaan rabaa in aan idin la wadaago adikana aad ka baxsan jawaabo ama comment ku qortaan qof walba ra'yigiisa sidii u arko warbixintan aan rabo in aan idin la wadaago waqti xaadirkan aan joogno ma wax dood ah ayaa ka taagan in uu yahay siyaasiga ugu shacbiyada badan Soomaaliya iyo guud ahaan geeska Afrika madaxweynihii hore ee dalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo adiga oo raacaya maankaaga maskaxdaada qiimeynayana siyaasiyiinta hadda aan leenahay ee Soomaaliyeed ma jira siyaasi ka shacbiyad badan ka taageerad badan madaxweyne Farmaajo adiga oo aanan eegeenin qabiil adiga oo aanan eegeenin waji adiga oo aanan eegeenin kan kugu dhow dad badan ayaa waxa ay qiimeeyeen ama ay dabagal ku sameeyeen ama ay raadiyeen siyaasiga Soomaaliyeed ee ugu shacbiyada badan Farmaajo marka laga yimaado Soomaaliya oo kaliya waxa ay leeyihiin waxa uu qabsaday geeska Afrika waxa uu noqday siyaasiga ugu ilka dheer siyaasiga ugu garaadka badan siyaasiga ugu taageerada badan marka aad fiirisid inta badan xafladaha iyo waxyaalaha laga hadlayo waa siyaasiga kaliya la hadal hayo waxa tusaale dhow ku soo siinaynaa madaxweynaha Soomaaliya hadda xilka haya ee Xasan Sheekh Maxamuud markii lagu soo dhaweynayay garoonka lagu calaamisaariyay madaxweynaha cusub ee Kenya Ruto wariyihii waxa uu yiri waxa hadda soo galay madaxweynaha Soomaaliya ee Farmaajo markii uu intaas yiri waxa guuxay dhammaan dadkii joogay ama garoonkii oo dhan ayaa hamar guuxay marka adiga hadda adigoona qaab kale u hadleenin ama aadan u fisirinin hadal qabiil Farmaajo ma yahay siyaasiga ugu shacbiyada badan waxaad nagula wadaagtaa commentigaaga uu yahay iyo ma ahan haduusan ahayn maxaad ku tiri haduu yahayna maxaad ku tiri jawaab wacan